Salaamu calaykum. Taariikhda qaran kasta waxaa laga akhriyaa dadkii hogaaminayay. Soomaaliyana waxay leedahay taariikh aad u weyn. Mid ka mid ahna waa Jaalle Maxamed Siyaad Barre, hogaamiyihii ugu saameynta badnaa siyaasadda Soomaaliya qarnigii dambe. Waa taariikh ka bilaabanaysa miyiga Gedo kuna dhammaanaysa magaalada Lagos ee Nigeria. Maantana waxaa dib u furaynaa buuggii Maxamed Siyaad Barre, waxaana hor yaala safar dheer noloshiisii hore, koritaankiisii ciidanka Afgembiga 1969 iyo hamigiisii midnimada. Maxamed Siyaad Barre wuxuu dhashay 1919 deegaanka Shalambuud iyo Guley, dhulka Soomaali galbeed. Wuxuuna ka soo jeedaa qoys reer guuraa ah oo dhaqanka Soomaalida si buuxda u haysta. Dhallinyaronimadiisii wuxuu galay askar ka tirsan Talyaaniga, sababtoo ah xilligaasi dalka Soomaaliya waxaa gumaysan jiray gumaystihii Talyaaniga. Markii uu Talyaanigu ka baxay dalka, wuxuu ku biiray ciidankii booliiska Soomaaliyeed. Wuxuu gaaray darajada taliye sare Major General, wuxuuna noqday mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan uguna xeelada badan ee ciidanka xilligaasi. Haddaba maxaa sabab u noqday inuu awood yeesho? Wuxuu lahaa aqoon ciidan oo dheeraad ah, sababtoo ah waa nin la shaqeeyay Talyaaniga, iyo qabyajir siyaasadeed oo dalka ku jiray, sumcad oo ku yeeshay maamulka iyo kala dambeynta. Taasina waxay u sahashay inuu noqdo ninka ugu saameynta badan diyaargarowgii Afgembigii xigay. Siduu ku imaaday Afgembigii 1969 7 Oktoobar 1969 markii la dilay madaxweynihii markaasi xilka hayay Cabdirashiid Cali Sharmarke, dalku wuxuu galay khallaaso siyaasadeed. Ciidamadu waxay sameeyeen Afgembi aan dhiig ku daadanin, waxaana hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Waxaa la sameeyay golihii sare ee kacaanka SRC. Xilligaasi wuxuu isku magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda, gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka iyo taliyaha guud ee ciidamada. Tani waa sababta uu ku yimaaday Afgembigii 1969 1969 ilaa iyo 1977. Xilligaani waxaa loo yaqaanaa kacaankii barakeysnaa. Waxaan hal ama laba ka sheegi doonaa waxqabadkii ugu muhiimsanaa ee la qabtay xilligii kacaanka. 1972 af Soomaaliga ayaa qoraal yeeshay, waxaana lagu qoray farta Laatiinka. Waxaa la sameeyay manhajkii waxbarashada ee Soomaaliga ku qornaa. Dagaalkii ogaadeen 1977 ilaa iyo 1978 waxaana u dhaxaysa hal sano oo keliya. Dagaalkan wuxuu ahaa midka ugu saameynta badnaa xukunkaasi. Ciidanka Soomaaliya ayaa qabsaday in ka badan 90% dhulka ogaadeen. Ciidanka Soomaaliya wuxuu noqday ciidanka ugu xooga badan ee Geeska Afrika. Burbur dambe, Midowgii Sofiyeeti ayaa taageeray Itoobiya. Soomaaliya ayaa ku khasbanaatay inay dib uga baxdo ogaadeen. Taasina waxay dhalisay niyad-jab, burbur dhaqaale iyo caro ciidan. Maxamed Siyaad Barre wuxuu bilaabay inuu awoodiisa adkeeyo oo keligii talis noqdo 1978 ilaa iyo 1988. Kadib guuldaradii ogaadeen, Siyaad Barre wuxuu bilaabay inuu adkeeyo xukunkiisa, cadaadis siyaasadeed, soo xirxiritaanka mucaaradka iyo xukun militari oo xoogan. Taasina waxay dhalisay inay soo baxaan mucaarad hubaysan oo kala ah Waqooyi, Hawiye, Bari, Koonfur iyo kooxo kaloo la mid ah. Maxamed Siyaad Barre ayaa noqday hogaamiye keligii talis ah oo cid kastana ka shakisan. Dhanka kalena waxaan sheegi doonaa dhaliilihii uu lahaa Jaalle Maxamed Siyaad Barre. Inkastoo aan dhihi karo 90% haliyey dalkiisa dhiiggiisa u huray, wuxuu dalka u horseeday dagaal sokeeya sabab la xiriirta cadaadis ciidan iyo qabyaalad lagu kala adeeganayay, dilka iyo jirdilka shacabkii mucaaradka. Dhacdadii Hargeysa 1988 iyo burbur dhaqaale. Dhicitaankii xukunkiisii 1991. Dabayaaqadii kacaanka mucaaradka oo dhan ayaa isbahaystay. USC-da waxay soo gashay Muqdisho January 1991. Siyaad Barre wuxuu ku cararay Beledoogle, ugu dambeynna wuxuu u qaxay Kenya kadibna Nigeria. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku geeriyooday Allah u naxariistay magaalada Lagos ee Nigeria 2 Janaayo 1995 isagoo 75 jir ah. Waxaana lagu aasay magaalo yar oo Nigeria ku taala, maadaama ay Soomaaliya dagaalo ka socdeen. Haddaba waxay ka dhigan tahay Siyaad Barre taariikh ahaan. Siyaad Barre waa hogaamiye waxqabad weynna leh, khibrad ciidan oo xoogan, hamigii afka Soomaaliga iyo horumar lagu xasuusto, laakiin sidoo kale qaladaad siyaasadeed oo dalka burbur weyn gaarsiiyay. Siyaad Barre taariikhdiisu waxay lahayd laba weji dhisid iyo weji burbur. Waana cashar qaran oo jiil walba u baahan yahay inuu barto. Salaam.